السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله سو دوادا مركله iyo muuqaal cusub walaalkina maxamed raas oo idin leh ku soo dhawaada Ramadaan Mubaarak waxaanu ku jirnaa 10kii dambe Ilaahay ha nooga dhigo 10kiina lagu cafin lahaa ama naga xureyn lahaa naarta sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barinaynaa inuu nu waafajiyo Laylatul Qadarka aamiin inta ka bacdi waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa inuu cudurka naga dulqaado inta xanuunsan inuu Ilaahay caafiyo inta la ildaran inuu Ilaahay caafiyo inta ku geeriyoon Ilaahay uu naxariiso inta aan qabin inuu Ilaahay ka badbaadiyo aamiin aamiin siday balanteena ahayd shalay waxaan soo dhigi doonaa natiijada kama dambaysta ah tartankeena Quraanka Kariimka ah oo maalmaha bay noogu socday Facebook-ayga Maxamed Raas iyo YouTube-kayga Al Muxsiniin wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay caawana waxaan idin soo bandhigaynaa natiijadii ugu dambaysta ahayd ama natiijadii ugu dambeysay runaantii waxaa soo tartamay 17 qofood oo isugu jira wiilal iyo gabdho runaantii waxaan leenahay dhamaantiin aad baad u mahadsantiin Ilaahay idin xisayo Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay idin sharafo waxaa sameyseen wax aad weyn waxaad bilowdeen tartan challenge cusub waxaan rajaynayaa inuusan halkaan ku ekaanin laakiin waad awoodaan inaad tartamo badan ka soo qayb gashaan waa awoodaan inaad soo bandhigtaan codkiina aad u qurux badan insha Allah halkiina ka sii wada ayaan leeyahay inta marka uu gudbo waxaa tartantay 17 qofood oo ka soo kala tartamay magaalooyin kala duwan haday ahaan lahayd dalka Soomaaliya ama haday ahaan meelo ka baxsan dalka Soomaaliya hadda si qaas ah oo meelaha ka baxsan dalka Soomaaliya waxaa laga soo tartamay Netherlands waxaa laga soo tartamay Kenya waxaa laga soo tartamay Yemen waxaa laga soo tartamay Saudi waxaa laga soo tartamay Uganda sidoo kale Soomaaliya waxaa laga soo kala tartamay magaalooyin aad u kala duwan haday ahaan lahayd Soomaaliya qaybaheeda kala duwan aloo hadda hal aan u soo wada sheegi karin in ka soo maadaama ay badan magaalooyinka laakiin waxaan xasuustaa Muqdisho Gaalkacyo Baydhabo Jowhar Kismaayo Hargeysa ilaahu afkeebeen kareeb iyo meelo kale in ka soo ajireen tartamo kayaal oo ka soo tartamay degmada Buurxakaba laakiin isla markaas xaaladaas ay joogeen magaalada Muqdisho dhamaantood waxaan u wada rajaynaynaa guul ayaan u wada rajaynaynaa inay wada guulaysan ayaa halkan ka wada qiraynaa laakiin guusha hadii la wada tartamo waxaa saddexaad ah dad yar ayaa waxaa qaaday kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad laakiin YouTube-keena Al Muxsiniin wuxuu idin soo gudbinayaa barnaamij kaas ka duwan waxaan leenahay dhamaantiina waad wada guulaysateen oo Ilaahay idin barakeeyo inta gashay kaalinta koowaad inta u soo gudubtay wareegga labaad iyo inta aan u soo gudbin wareegga labaadba dhamaantiin waa wada mahadsantiin sababtoo ah waxaa soo bandhigtay cod aad u qurux badan oo dhamaan intii daabatay ama intii dhageysatay ay aad ugu wada riyaaqeen khaasatan aniga shakhsi ahaantayda aad ayaan ugu farxay codkii markaan dhageystay haddaba waxaad iga sugaysay natiijada in aan idin sheego kaalinta koowaad qofkii galay iyo kaalinta labaad qofkii galay iyo kaalinta saddexaad qofkii galay waan idin sheegi doonaa laakiin inta aan idin wada sheegin ka hor waxaan rabaa inaan idin soo xasuusiyo codadkii ay soo duubeen oo aad u gaagaaban hal aayad aan ku soo qaban doono akhrisayaashii min bilowgii tartanka dhamaad ee 10kii qofood ee u soo gudubtay wareegga labaad إلى دقيستا كدب الوحيدين شيء دونا نتيجة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. waxaan filayaa inaad dhegaysateen codkaas ama aan idin soo xasuusiyey tartamayaashii oo kasoo kala tartamay adoo niyadaada ama maskaxdaas ka leedahay yaa guulasay talow kaalinta koowaad yaa qaaday. run ahaantii waxaan rabaa halkaa inaan ka caddeeyo ardayda dhammaan soo tartantay khaasatan 10kii dambe kuwa usoo gudbay kulligooda codkooda aad ayay u fiicnaayeen, khaladaadkoodna aad ayay u yaraayeen. lajna taxkiim marka waxay ku kala xukumeen qaab ah sida tartamada kale loo qabto haddii ahaa lahayd axkaam tajwiid, haddii ahaa lahayd shakiga, haddii ahaa lahayd waxaa waaye shaqalaadka, haddii ahaa lahayd waxaa waaye qifka ama joogsiga meelaha qaarkood oo joogsiga inaan la joogsanayo, haddii ahaa lahayd boobsiiska qofka siduu u boobsiyo ama siduu u kala tartiilo, waxaas ayay kusoo kala qaateen. laakiin dhammaantood 10kii dambe kuwa soo gudbay aad ayay u fiicnaayeen. halkii natiijadii hore ay ahaan jirtay 10kiiba 10 lagu sixi jiray, qaarna ay keeni jireen 3 ama 4 ama 5 ama 6 ama 7. laakiin waxaan rabaa inaan idin caddeeyo wareegii labaad qofkii ugu hooseeyey ayaa wuxuu keenay 8.5. taasna waxay muujinaysaa dadaalka ay soo bandhigeen iyo maasha Allah juhdiga ay bixiyeen ama mas'uuliyadda ay iska saareen inay u soo gudbeen wareeg labaad. waan ognahay tartan markii la galay wareega koowaad markii loo soo baxo iyo wareega labaad markii loo soo baxo aad ayay u kala fudud yihiin, aad ayay يعني وكل مسؤولية بدي. لكن أرديدي صوت تنتهي وريق لبعض وحي بوجين مسؤولية أدوين وحي يراين قلادات كودا وحي يراين ما شاء الله وحي قرحين عد كودا وحي سميين جهدي أدو فربطاس درتين وحي دليسي إن قفكي أبو يرا وكانوا سديد إبر حالكي وريقي كواد قاركي دادكي أبو سرعي كين جيرين طبعاً بالطبعاً قف كان وآد ويرا أما هل أما قف لما لو قفت أي أحيان. لكن بدنا أنا كان سديد إبر تضوي إبر oo kuwa 10ka dambe u soo gudbay ay ahaayeen natiijadooda kuwii ka sareeyay 10kiiba 7 laakiin wareegga labaad waxay ahaayeen qofkii ugu hooseeyay ayaa wuxuu keenay 8. ma sha Allah tabarakallah. marka hadda waxaan rabaa inaan idin sheego arrin kale oo aan rabo inaan kaga farxiyo ardaydii tartantay. waxaan rabaa qof muxsinad ah oo walaasheen ah muslimad ayaa waxay sheegtay gabdhihii soo tartamay ayay tiri waxaan u ballan qaaday qof kasta hal xijaab oo aad u qurux badan.
marka xijaabka waxaan ku qiimeynay insha allah $25 ayaan ku qiimeynay hadduu ugu batana marka waa mushkila haddii ugu yaraadana kale wixii usoo haraayada iskale gabdhihii soo tartamay 4 gabdhood oo soo tartamay waxaan leeyahay waxaad ku guulaysateen qof kasta hal xijaab oo aad u qurux badan oo qiimihiisa uu yahay $25 meel walba meesha joogtida halka joogtay ayaa lagu soo gaarsiin doonaa insha Allah ayaan kula soo xiriiri doonaa numberkaagana waxaan ka qaadan doonaa kale waalidiintii adiga ku soo diray ee ku soo galay magacahan haddaan soo sheego marka gabdhaha ku soo tartamay tartankan waxaa ka mid ah Munira oo joogta Netherlands Siham oo joogta Baydhabo Janay Asma iyo Anisa oo ayagana kala jooga Nairobi abti ama adeer waxaa ku guulaysatay $25 oo ah xijaab insha Allah binillahi karim oo baxsatay qof ku xiran YouTube-ka Al-Muxsiniin oo idin la jeclaatay ma sha Allah oo aragtay xijaab quruxda badan aad ku labisan tihiin markay jeclaatay ayay idin la jeclaatay xijaabkaas kamid ah xagga ciid inay idin sameeyso marka qiimihiina waxaan ku qiyaasnay halahaas insha Allah waan idin soo diri doonaa hadduu Ilaahay kala noqdo marka halkaas ugu gudbo wiilashii tartamay ma sha Allah ayagana tabaarakallah waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin aad baa u dadaasheen marka sidii balantu ahayd ana hore aan u sheegnay waxaan niri kaalinta koowaad waxaan siinaynaa $100 kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadna waxaan u qiimeyn doonaa insha Allah qiimooyin markaas ayaga lajanada ama dadkii barnaamijkaas maalgelinta yar ku sameeyay sidii loo helayo ku xirnay laakiin kole waxaan u maleynayaa lockdown-ka dartiis dad badan oo yiri anagana waa ka qayb qaadanaynaa lama soo xiriirin laakiin waxaan leenahay sadaqada sidaa u niyeysateen Ilaahay habeenka aqbalo laakiin waxaan sameynaynaa insha Allah kaalinta koowaad waxaan siinaynaa $100 kaalinta labaad iyo saddexaadna waxaan siinaynaa $50 maadaama ay isku dhawaayeen kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxba aan ku kala duwnayn marka saas ayaa u qorsheynay marka biidnillaahi kariim dadkii kale ayagana 10kii kale u soo baxay 10kii kale oo u soo baxay markii laga reebo saddexdan qofood waxaa soo haraysa 7 qofood idinkana waxaan idin hadiyeynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay ka raali noqdo kitaab Qur'aan Kariim ayaan idin hadiyeynaynaa insha Allah oo aan idin soo gaarsiin doono meel ala meel ka joogtaan insha Allah hadduu Ilaahay ka raali noqdo waliba waxaan jeclahay inaan idin ka dhigno kitaab qaari qalam kitaabka la yiraahdo oo qiimihiisa aan ka yareen $50 inaan idin soo gaarsiin doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo markay ay furmaan wadooyinka insha Allah ardaydii kale soo tartantay si fiican ii dhageysta ardaydii kale soo tartantay oo aan kaalimaha keenay laakiin u soo gudbay wareegii labaad dhamaantiin waxaad ku guulaysateen kitaab qaari qalam ah oo mutawar ah oo ma sha Allah noocyada ugu fiican ah hadduu Ilaahay ka raali noqdo magacyadoodana halkaan hoos ayaan ku soo sheegi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo 9kii qofood oo u soo gudbay wareegga labaad marka laga reebo 3 qofood oo kaalimaha ku guulaystay intii kale waxaa leedahay kitaab qaari qalam marka waa idinku dheereeyay waxaan rabaa inaan idin sheego natiijada koowaad qofkii ku guulaystay natiijada koowaad waxaa ku guulaystay alqaari ma sha Allah tabaarakallah codkiisa iyo qiraa'adiisa iyo tilaawadiisa aad loogu wada maqsuuday Jaabir Cabdicasiis ma sha Allah tabaarakallah Jaabir waxaa leenahay Ilaahay ha ku barakeeyo Ilaahay ha ka dhigo kii waalidiintiisa yawmal qiyaamah taajka madaxa u suuri lahaa kaalinta labaad waxaa ku guulaystay hadduu Ilaahay ka raali noqdo Caadil oo asna ka soo tartamay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda ma sha Allah Caadil qofka fiicnaa meesha ma jirin ma sha Allah qiraa'adaadii iyo tajwiidkaadii iyo ahkaamtaadii ma sha Allah tabaarakallah waxaad mutaysatay kaalinta labaad waxaana ku keensatay juhdigaaga iyo tartankaaga iyo dadaalkaaga ma sha Allah adna waxaa ku guulaysatay $50 ma sha Allah tabaarakallah kaalinta saddexaad waxaa galay Cabduqaadir Maxamed Nuur ما شاء الله تبارك الله عبد القادر أنا واحد هذا شيء سيد ولا الله حاجة يود ذلك ما شاء الله تبارك الله تجويد كذا عبد القادر كان سيد حد وكيقول يستي مركز لقى صبحه وحيابها كله وحال يري تراعد محمد يشك لجنة تحكيم وحيقو قوندين أما أو أقوسدين ما شاء الله تبارك الله خفك أو عدك في عنا إنه يهي عبد القادر أدينا ما شاء الله تبارك الله إله كبركيو عادل أدينا إله كبركيو جابر سد حدين إله هدين بركيو إن شاء الله كل ذلك موجسين ولا علينا ويدي موجي لكن نصيبك وحواي خف وقت سيقاضيا أرديدا كانوا حرجينا إن شاء الله يجينا وقت ودم بإني قاعد دوران مركو حاليا أنت آدم كبحين دا وحاليا هي ما شاء الله تبارك الله ادعي إنه إلهي كديجو كوي يوم القيامة والدين تو تاج كمدح وصول لها أو ذهب كأه إن أيجنا أو نقول لها كوي إلهي كو أنفع قرآنك بإذن الله كريم
marka aan usoo noqdo saddexdan tartame ee kala ah jaabir iyo caadil iyo cabdiqaadir abaalmarintiina insha allah sida ugu soo dhaqsiyaha badan ayay idin soo gaari doontaa hadduu ilaahay karaa noqdo. waxaan idinka dalbanaya markay idin soo gaarto muuqaalka hoostiisa commentiga inaad kusoo qortaan waa helnay waana soo gaartay, ama muuqaal aan noo soo dubtaa si aan usoo gudbino walaalihiina aan u tusno, ama dadkii barnaamijkan sameeyey insha allah oo fangareeyey si ayagana ay u arkaan hadduu ilaahay karaa noqdo. ardaydii kale marka oo fursadda u yeelan weysay inay kaalimaha nagu horeystay ay ku guulaystaan, waxaa leenahay adduunyada halkaan kuma eko, dadaalkiina sii laaba. waxaa jiray arday aad u qurux badnaa, codkooda aad u fiicnaa maasha allah tabaaraka allah, laakiin khaldaadka yaryar darteed oo ugu soo bixi waayo wareegga labaad oo uu ka mid yahay mahad waa dhowr oo maasha allah tabaaraka allah codkiisa aad u qurux badnaa. hadduu ilaah karaa noqdo sihaam, muniira, xamza, allahuma salli ala sayyidina mucaad, maasha allah tabaaraka allah ii sheeg hilmaa hadal kuma jiro. ardaydaas kale oo ayagana usoo gudbi waayo wareegga labaad ma ahayn inay ku hareen yani waxaa waaye dicfi ama awood yari, laakiin tartanka markii la saxayo ayaa waxay tahay qof kasta waxaa lagu qiimeeya markaa qofka ugu qaladaadka yar hal nuqta, haddii aad hal xaraf aad oo shaqalkiisa oo kordhowna haddii aad hoos dhowdo ama aad qaloociso taas waxay noqon doontaa marka qofkii adiga kula tartamaya oo asi saxay inuu kaaga guulaysto. haddii adiga aad saxday oo wixii dhan aad saxday codkana waxaa waaye oo kaa cod fiicnaado, laga yaaba inuu kaalinta koowaad galo. haddii aad isku mid ahaydan wax walba laga yaabaa inuu kaaga guulaystay axkaam tajwiidka iyo waqfiga iyo waxyaabaha noocaas oo kale. marka insha allah wixii aan qaladnay nafsadeena ayay ka ahaatay, wixii aan saxnayna ilaahay ayaa ugu shukrinaynaa insha allah. kole tabaaraka allah insha allah maasha allah tabaaraka allah ayaan idin leenahay dhammaantiin, ilaahay idin barakeeyo. waxaan rajaynaynaa tartankan inuu sii socon doono, inuu halkan dad badan ayaa iga soo codsaday oo dad waaweyn ah waxay yidhahdeen noo bilow tartan dadka waaweyn ah. kolay commentiga hoos kusoo qora haddii aan soo bilaawo tartan dadka waaweyn insha allah aan bilaawaayo, iyo haddii kale commentiga ra'yigan idinka rabaa insha allah. haddaad tartami kartaan oo soo dhigi kartaan kolay insha allah waa idin furanaa rag iyo dumar insha allah biidni illahi kariim. youtube-ka almuxsiniin wuxuu u taagnaan doonaa insha allah horumarinta bulshadiisa dhinac walba ha ahaato, dhinaca diiniga, wacyigelinta iyo caafimaadka, wax alaala wixii anaga aan awoodno aan isleenahay bulshada way u baahan tahay waa idin soo gudbin doonaa. mar kale waxaa idin leeyahay waxaan idinkaga tagaya fi amaan illah. shantan cishe ee maanta ay ka bilaabanayso insha allah 10kan dambe youtube-ka hadduu ilahay karaa noqdo waxaan soo dhigi doonaa keliya hadduu ilahay karaa noqdo tafsiirka. tartankii halkaas ayuu noo egyahay, laakiin ha iloowin hadduusan subscribe ku ahayn subscribe saar. ciidda waxaan insha allah idin diyaarinaynaa dhammaan ciid mubaarak hadduu ilaahay karaa noqdo. barnaamij ciid mubaarak ilahay ayaa jiro oo su-aalo ah oo live ah hadduu ilaahay karaa noqdo. markaa qofkii ka guulaysta ciid mubaarakkiisa diyaar waa biidni illahi kariim. qorshihiisa iyo qabaqaabays ayaan ku jirnaa, marka hadduusan subscribe ku ahayn subscribe saaro nala soco biidni illahi kariim. sidaas ayaan idinkaga tagayna. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. anigoo ah walaalkeen maxamed waxaan idinkaga tagay fi amaan illah. 10kan dambena jilbaha aan xirano, cibaadada aan u istaagno, ilaahay aan barino. soonka intiina dhaaftay haddii aan yaraynay xamaasheena, inta hadda noo dhiman aan ku fikirno inuu ilaahay naga aqbalo, juhdigeenan aan wada laabno, ilaahayna hana waafajiyo laylatul qadarka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.